dadkii ay xoolahoodu kaga dhammaadeen abaarta ba'an ee saamaysay dadka iyo dunyada ku nool gobolada bariga Somaliland oo qaybo ka mid ah ay ku soo barakaceen gudaha magaalada Burco ayaanu ku booqanay goobta ugu badan ee dadkani ka degan yihiin magaalada Burco dadkani oo ay ka muuqato daryeel la'aan baahsani ayaa nooga xog waramay xaaladooda nololeed waxaanay gudida abaaraha heer qaran iyo gobolka Togdheerba ku canaanteen inay gebi ahaanba ka gaabiyeen gurmadkii iyo waxtarkii ay uga baahnayeen iyagoo madaxweynaha Somaliland iyo deeq-bixiyaasha caalamiga iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ka codsaday inay u diirnaxaan isla markaana lala soo gaadho waxtar iyo taakulayn markaa waxaan doonaynaa gudida abaaraha iyo ummadda Ilaahay baday inay wax soo gaarsiiso oo aanu maxaan dhahday abaareedna ma aanu arag cid kalena ma aanan arag halkaas aanu basbeel ku nahay oo aanu ku basaynaa in wax la soo gaarsiiyaan gudida abaaraha iyo muslimkaba ka sugaynaa gobol iyo gudida abaareedna ma aanu arag halka maxaan ayaanu joognaa dayrka maxaan madaarka cidina nooma iman cidna ma aanan cidina ma soo gaarin maxaan anagoo aan haystaan 6 caruura maxaan wax xoolo yaro waqtiyayo aan wax xalaale wax laga cuno iyo wax laga qaato toona lahayn ayaan halka maxaan fadhinaayo joognaa muslimka Ilaahay inuu noo gurmado oo gacan qabto oo waa walaalahayo wixii maxaan wax dheerna taabin kara ayaan wax ka sugaynaa anoo nimi meesha airportka wax imika na soo gaaray gudida abaaruhu na soo gaarsiiyeen ma jiraan imika ayaanu soo biirnay imika ayaanu doonaynaa hawlgelin wixii dalino heli karayeen ugu caawiyaan dadkan walaalaha iyaga ma naqaano gudida abaaruhu haga man ka soo guurnay imika halkan dhowey qobaha yar daboolan iyo halkan ka soo guuray waxurinimay soo gaarsiin imika baan anagu meeshan xoolihii imika 16 neef ayaa noo xaraysan anaga labadeeda jees inaga dhamaaday marka hore daari badan oo tiro iyo meelaha sabab ah laakiin imika 16 baan nooga haray saar Axmed runtii waa taayada noo soo saartay waa taade halkaan dhigtay halkaan miyaan iman lahayn xaalad waxaan ku jirno anaga nama soo gaarin qoliyahan xitaa marba waxna la siiyay anaga garoonkana laga siiyay hay'ad ma garanaysaa marba anaga waxna soo gaarin waana u baahanahay hadii naga gacan qabto waxa saymka 30 bay hayaan aniga intaas 13 baa ka 13 xaaladdeeduna waa khayr badan wixii inta kulayn karaan u baaqaynaa wixii taakulayn kara hadii aan waxna taakulayn kara hadaan helno waa u baahan walaani waxa la yiraahdaa leela wareemay ma baan wala gudana abaari la sheegaan wala waxba ma soo gaartiin dadka kale biyaha waxaan ugu saawiyo raashinka mooyaan walaayna waxna soo gaarsiiyaan sida muslimiinta walaalaha kale markii dambena waan sidii waan isteeganaa marka ariga naga baxay gaadiidkii jamka wala waxaan gudi sheeganay wali ma aanan arago nooma imano xaafadayga diga nuguma imanin dadka loo islaamada Ilaahay wax nagu soo dhibdhoon bad meelahan nagu keeno mooyaane ma aanan aragno wali wax gudida abaaraha ku saabsan inay gurmadna soo gaarsiiyaan wala wax waxaan ku leeyahay cunno iyo waxaan huwanayo wax kasta waan ugu baaqaynaa in siiyaan walaalayaasheedaasi noo soo gurmadaan dadka maatada halkan isugu soo ururay waxa weeye biyo iyo baatoona ma hayaan raxmadii ahayna Ilaahay way taas ku xiran waxay haysteen maadaama waxay ahaan xoolo ku noolaan dadkeen xoolina maadaama haday baxeen waxay joogo maatadina maadaama hadaan saaqad Ilaahay baa bixiyaa daanide hay'adu iyo caafimaad aan la shaqayn ma had gargaarkooda wala suxun buuxin tangiib biyo ku jiraan naamku waa gooyin wada xoolana way baxayaan inta marka heer walba imka waxa jooga ariyii wada aragtana waa kuwa waa 10 neef wixii si jooga habeen maalin way baqtiyaa marka xaaladaha dadku waxay maadaama yar baa jooga wadan maatadii ayaa ugu sii gudida abaaru nama soo gaarsiin magaalada dawladkana waa naala maalintaas inoo jirta laakiin kuwaas marka nama soo gaaraan maadaama idinka imka noo yimi idinka horeysan ma naana bulshada waxa ma qabatooda walaalaha inay hay'ada gargaar suuxan wax la soo gaaraan maadaama dad teer Soomaaliland wada dhasheen xaalad xun waa lagu jiraa habeen waana waa baqtiyaan xoolo hay'ada gargaarka suuxan baan ugu codsanaa deeni
caafimaad iyo gargaar noo soo gaaraan dhanka kale guddida abaaraha gobolka Togdheer oo aanu isku daynay inaan wax ka weydiino dhaliilahan loo soo jeediyay ayaanay noo suura gelin si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horeysay ee cabasho noocan oo kale ah laga muujiyo guddida abaaraha heer qaran iyo gobolka Togdheer waxaana maalinba maalinta ka dambaysa isu soo taraya cabashooyinka ka soo yeedhaya dadka ay isku bahaysteen abaarta daran iyo biyo la'aantu waa Cabdiraxmaan Roble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Trike telefishka caalamiga Kalsan TV magaalada Burco.